barnaamijka dhiirigelinta dhalinyarada iyo adkeynta qarannimada Soomaaliland ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boorama ayaa habeennimadii xalay lagu qabtay hotel race ee magaalada Boorama. Munaasabadani ay soo camireen qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boorama ee jecel horumarka iyo adkeynta qarannimada Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa kala soo qayb galay maamulka gobolka Awdal, qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda gobolka iyo mas'uuliyiin kale. Waxaana munaasabadaasi ugu horeyn hadalka qaatay qaar ka mid ah dhalinyaradii soo qaban kulankani iyagoona ka warbixiyay ujeedada u daarana madashan dhalinyarada waxaan ugu talagalnay inay markasta dhalinyarada Soomaaliland mid ahaadaan, inay markasta dhalinyarada Soomaaliland gacmaha isqabsanaan, inay markasta dhalinyarada Soomaaliland ay noqoto gobolka Awdal meesha kaliya horumarka dhalinyarada ka talisa. hore waxaan u aasaasnay barnaamijka Karwaakeygi oo loogu talagalay dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliland iyo adkeynta qarannimada Soomaaliland. barnaamijkan wuxuu noqonayaa barnaamij aan gobolada Soomaaliland soo marno aanan kula dhiirigelino dhalinyartu si ay uga shaqeyso qarannimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. inta kadib waxaa hadalka qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay kulankani iyagoona ku bogaadiyay barnaamijkani dhalinyarada ku nool magaalada Boorama ee soo qaban qaabisay. dhalinyaradan oo runtii imika isdhexgalka dhalinyarada iyo adkeynta qarannimada waa muhiim, waa awoodii iyo horumarkii qaranka. waa muhiim inaan dhalinyarteena si positive attitude dhinaca positive-ka ugu fikiraan. markaan waxaan rajaynayaa dhalinyarada 70% ay ha noqdaan kuwa constructive yaana noqonin kuwa destructive oo wax burburiya. dhalinyarada waxaan u furnay barnaamij ciyaareed oo ah 2 koob halkan ka socda. waxaan leenahay dhalinyaradu ha ku soo hoggaansamaan 2 koob ee halkan ka socda. maalin walba inta daawataay ama inta media ka daawata ama inta garoonka ka soo qayb gashay waxa ay ka baxaan iyaga oo maskaxdoodu ay dhisan tahay. dhalinyaradu anu waan jecelahay oo inama badan baan dhalay, 5 inaan baan dhalay oo maanta wada muddo kara. habluhu sidoo kale hablaygu waa la guursaday. hooyo sadaha aan hay waxaan jecelahay inaan mar walba dhalinyarada hor joogo. inakaygu bari soo bixi maayo mudaharaad baa la sheegay. inantayduna iga soo bixi mayso. hooyo kasta waxaan ku boorinayaa inay inanteedu inakayga xijisato. waxaan ku leeyahay salaamaad ma kulli aafaan. oo ku dhiirigelinayna in aan kor u qaadno wacyiga nolosha, horumarinta dalka, hagaajinta dalka iyo arrimaha wadajirka. aad iyo aad baad mahadsantihiin. hablaha quruxda badan leh halka fadhiya, dhalinyarta quruxda badan leh halka fadhida maadeeradaya looga baqi maayo nabadgeliyo darro, looga baqi maayo dib loo celiya mudane gudoomiye, looga baqi maayo gobolkani waa gobolkii nabadda, waa gobolkii lagu yagleelay Soomaaliland. inaan gobolada kalena gaarsiino fariintan caawa halkan ka dirayno oo nagaga wada dayda ayaan ma taqaanay diyaar u nahay. dhalinyaradu inay qabtaan barnaamijyo noocan oo kala ah oo dhiirigelinaya qarannimada Soomaaliland. waxaan doonayaa hadiyad yar oo aan saa u weynay inaan guddoonsiiyo. farxiyo aragtay, Boorama aragtay. haddaad Boorama joogto farxiyo aragtay. soo dhawtahay caqliyada bini'aadanka wanaagsani saxday garataa baa la yiri. ninkii qalinka soo sameeyay markuu la soo dardaarmay wuxuu ku yiri bini'aadan oo qofka doonaysa waa inaad soo saartaa. haddaba waxaan ka hadlaynaa dhalinyaradeennu maadaama ay wax barteen dawladnimada iyo habka ay doonayaan iyo horumarka waa inay la yimaadaan. loo baahay hooyo walba oo caawa halka ka kacda iyo inay yaro dhalinyaro odayaasha cuqaasha dhammaan inay dib ugu noqdaan guryahoodii inta u dhow ku guubaabiyaan inuu qof walba gurigooda fadhiyo oo arrinka loo baxaya awnahay wax qiimaba ku fadhiya. yaradana waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay uu mustaqbalkiisa hamigiisa siiyo inuu nabadana inoo adkeeyo. guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada gartay inaan lama jara habaabin oo halkani caawa ay daroonkooda ku soo bandhigaan ayna diyaar u ahayn khalkhal iyo wax kale. maalmahan u dambeysay meelaha ka hadlayay waxaanu leenahay ka gobol ahaan anagu maanta waxaanu u aragnaa fursad weyn in la furo ururadii siyaasadda. waxaanu maanta diyaar u nahay inaanu la soo baxno ururkayaga iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar. waxaan doonaynaa ururkaasi inuu gobolka Awdal maanta la soo baxo. war maanta reer Awdal ay taagan tahay. ugu dambeyn waxaa madashaasi hadalka qaatay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro. war nimankanu dhibaato kale ma haysato, wax calaad kale ma jirtee muran kursi ma soo yar dhaxmaray. inagu markaa muranka kursi intaynu meel fariisano soo inaynu soo dilma war maxaa ku dana intaasun maskaxda gali nimanka isaya waa niman wax isku haya. inagu danteena halkee ku jirta beriga kartoon yar baan sawiradna magaalada wuxuu sawirgeeliyo soo galay iyo digaagiyo yaacayo magaalada ka baxayo war hanagu joogsanina. ujeedadu kala waxa wadankii waxa qabsaday barbeeris dad reer miya qabsaday. haddii intii reer magaalkeeda aqoonta leh digaag ahayd uga yaacdo meesha soo duumayso dadka in loo taliyo u baahan inuu xusho khayr badan baan rajaynayaa. ciidii barnaamijkeena noo soo abaabushay aad bay ugu mahadsan tahay. وعبسلان
bashiir faarax absalaan saaha warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Boorama.